دبي قميسيقا نقون دنورين magacaygu waa Nuur Isaaq Aadan Sagaar oo ka tirsan cutubka ururka lixdamaad ee ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan halkan tababar ku qaatay muddo dhan 3 bilood waxaan ka faa'iiday tababarka waxyaabo badan sida ilaalada madaxtooyada qaabka security-ka jimicsi fara badan gaardi in badan wax badan baan ka faa'iiday markaan soo galay waxaan ahaa nin xogaa birside oo furan haddana waxaan ahay nin adag ودول قادن كرا وحولبو حالات والبو يسوي جهده وأنا ماسين معلمين تدي توبري يدما وريا بسم الله الرحمن الرحيم قدر دار حالنا دقل حوق الدلك فترسل أورك الخدمات هل كان حاول شوقنا توبر هذه آدم مهم سن وإن بدل الناس السعودي ما عندنا نوحر من ربه توبر كاس بعيدا كقار كيس توبر بدن بيسوء آذين لكن توبر كان توبر لا دقه ما لهين هذه أدب في عيان معلمين تيادنا توبرت هذه أدب مسادين تلياش هذا السيد كله أنا قلنا وقوقنا عسلنا توبر والبول قالنا كل سوني في الفرعون ما كقاد waxaad ogtihiin in aan ka shaqeynayno shaqooyin inta badan ka duwan shaqada ciidamada sidee uga duwan tahay ina isweydiino waxay uga duwan tahay dhamaanteen hal waajib aan nahay hal shaqan haynaa laakiin waxyaabaha aan uga duwanaa maxay yihiin waxaan ku dhex jirnaa bulshadii waxaan ka shaqeynaynaa wadooyinkii waxaan ka shaqeynaynaa xaafadihii dhaxdooda waxaan ka shaqeynaynaa madaxtooyadii qaranka iyo xarumihii muhiimka ah ee dawladda saas darteed waxaan noo imaanaya bulshooyin kala duwan waxaan nala jooga aabayaashii waxaan nala jooga hooyayaashii waxaan nala jooga caruurtii waxaan nala jooga dhalinyaradii waxaan nala jooga siyaasiyiintii laftirkooda oo kala duwan dhammaan ummadaas oo dhan marka waxa la rabaa inaan noqono dad u leh dulqaad dad u leh fahan ay ku gutaan waajibkooda ayadoo aysan imaan wax qaladaad shaqadoodina ay noqoto sidii looga baahnay oo aysan noqon mid ay ka muuqdaan duduleelo ama habacsanaan saas darteed waxaan rijaynaa insha Allah taala in aan noqono kuwa ku amal fala tababaradii kala duwan ee ay qaateen tababar halkan idin kaga bilaabamay dhamaantiin qof kasta ee idin kamida ama waa kii saddexaad ama waa kii afaraad ama waaba ka sii badan yahay saas darteed dhammaan waxyaabaha soo dhan qof walba inay isu geysato isku kaabto ay noqoto qof dhameystiran oo waajibka shaqo ee nasaaran ee nagala sugaayo ee noola idmaday si habsami leh oo wanaagsan oo habacsanaan aysan ku jirin oo duduleela aysan ka muuqan oo dishibiliin ku dheehan yahay oo wadaniyad ku dheehan tahay oo ay ku dheehan tahay dad jacayl iyo dal jacayl inaan u qaba doontaan rajayna insha Allah annagana aan dabcan dhamaanteen anagoo garbaha ishaysana oo isgarab taagan oo hadafkeenu yahay wanaaga iyo qarannimada ina wada gaari doon maalmihii ugu dambeeyaan ku jirnaa gabagabadii koorsadeenan ku jirnaa waxaan idinku la dardaarmayaa mar kasta in aad xusiisnaataan casharadii kala duwanay waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin kuwa meeshii aad ku qaadateen aad uga tagtaan waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa badiya dulqaadka iyo samirka maadaama aad bulshada ka dhex shaqaynaysaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo caafimaad insha Allah inta dhinaceennu dhulka uu ka sareeyo lagu soo dhici maayo